بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن oo wanaagsan aqyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliya daawadayaasha aan jecelnahay ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno fanaanka qaran oo ka tirsanaan jiray goboladii Waaberi Soomaaliya Cabdi Baadil Ibrahim oo booqasho ku joogo wadanka Holland isla markaasna aan ka wareysan doono waxyaabo ku saabsan taariikhda dalka Soomaaliya gaar ahaan waayihii oo Soomaaliya joogay iyo waliba xilliga xorriyadda maadaama kowda luuliyo iyo maalintii toddobaadka xorriyadda lagu jiro hadda Cabdi Baadil ku soo dhawaaysan TV waa maasantahay waa dhawahay taajirow aad baan ku salaamaya ummadda Soomaaliyeedna ciid wanaagsan baan leeyahay aad baan u salaamaya kulli soo dhayin هذا ما سنتاي فنانك قالي عبد بادل إبراهيم وحا أنه ورئيسيسا أنت بدن كسب سنة دونا مالما حريته إنه كشكاي وحيابه وكي قاني أنتوا أسود جوجي سيدا كانوا حو تاكبن حو مركزي نقاد دونا هسه مركزي كسب سن حرية الصومالية iyo waliba waayihii dalka uu markaasi ka shaqeynayo habalada Waaberi sidii markaasi loogu dabaaldegi jiray intuu qurbaha uu ku noolaa waxyaabaha arkay Cabdi Baadil toddobaadka xorriyadda ayaan ku jirnaa Soomaaliya bal marka hore daawadayaasha maxaa ugu tala gashay maxaad ka sheegi kartaa xorriyadda anigu kulley waan yaraa mana soo gaarin waa dhihi karaa sababtoo ah waxaan ahay dadkii xorriyaddii la kowsaday ayaan ahay marka dadkuna waxay u kala baxaan dad farxad ku dhashay iyo dad colaad ku dhashay waa ka xumayd Soomaalida hadda dad waxaa jira colaad ku dhashay laakiin aniga waxaan ku jiraa gruubka xorriyadda ku dhashay oo maalinka dadku wada ciidayeen oo dee niyad lisu hayay qabiil ma jirin colaad ma jirin isjacayl wanaag daris istixgelin ammaan dugsi quraanka la wada aadayay si nabada looga soo noqonayay laakiin haddan waxa weeye dadkii weynaga adkaysi badan dadkan waa dad adkaysi badan laakiin marka isu dhiga labada dhinac dadkan waxay noqon doonaan dad aakhirka walaalooba ay noqon doonaan sababtoo colaadda ayaa walaaleynaysa marka saadaal waxa ay muuqata dadkan haddii Soomaalinimada ay soo laabato in ayna colaad dambe ayna soo laabanin walaaloobi doonaan maanta waxa aad ugu faraxsanahay meel walba dabaaldega Soomaaliya inkastoo ani adi taajirow maanta aan de maqaayadaha aan soo maray meelaha aan ku soo wada dadqaana xoogaa ku soo dalxiisnay gaaladu si kale u socdeen laakiin anagu dalxiis ciidan u soconay waa iska soo ciidnay afkeenana waxa u badnaa inaan duceyno ummadda Soomaaliyeed qulubtooda inuu Ilaahay soo jeediyo marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan hobalada Waaberi aad baad kugu xiisay kulley waad ciidaysaan adinkana ciid wanaagsan baad leeyahay aad baad idin wada salaamaya sawdantii وقتها عبد بادل كمان كاجي ووضتا معلمية فرحدة معلمية حرية تضباطك حرية على وجرة ورئيس جانا قيبيس دم بسيدي لود بالدق جري وكشة كان دون تاي وحياة بدنا هاي ساق قبرات بدنا أقول هذا هولان بالمحاد نوقف رئيسا هستيج على هذا أد حسين سوادت كان لهذا كل الدعوة أنا دو كمان أنا وحان أدو حسين عيدا كالصوماليات إن الإسمان oo aanu yeelano ciidan xoog leh yaan anigu rajaynaya dawlad aan ciidan lahayn dawlad ma marka ciidanku waxaan leeyahay ciid wanaagsan booliiska Soomaaliyeed dadka maanta wadooyinka taagtaagan ee maanta nabadgelyada u taaganna waxay mudan yihiin abaal iyo lama ilaawaan nin u taagan dadka inuu nabadgelyadooda ilaaliyana oo dhinacna ka ciidaya adinkuna waxaad leeyahay dhamaan dadkiina xorriyadda iyo nabadgelyada Soomaaliyeed amaankoodii dariiqa u istaagay ciid wanaagsan baan leeyahay in aad loo salaaman ayaga mudan marka haasii waagaas yaan mid u soo qabanaya waxaana qaadi jiray Allahu naxariistay Maxamed Salabaan marka dadkii iyo dalkii iyo calankaba daryeeshay dadkii iyo dalkii iyo calankaba daryeeshay
rabbi haydin daaye waydin dabagalaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagalaynaa daalimayne daalimayne kuwii xumaa diidayee wanaagga doonayow xaqayagii la duudsiiyey kuwii dilaaciyow kuwii xumaa diidayee wanaagga doonayow xaqayagii la duudsiiyey kuwii dilaaciyow xoogga dalkow xoogga dalkow xoogga dalkow xoogga dalkow xoogga dalkow xoogga dalkow waa ka haddaba waa tahay waxaan filayaa ciidamada xoogga dalka iyo heestii maxamed suleymaan tubaac inaa xasuusisay adigoo markaasi ku guda jira maalmihii farxadda iyo maalmihii ciidda iyo maalmihii xorriyadda dalka soomaaliya waxaan filayaa in soomaalida meel kastoo joogtana ay dabaaldegayaan cabdibaadil hobolladii waa beryaa ka mid ahayd maantaoo kale iyo maalmahan xorriyaddaoo kale iyo toddobaadka xorriyadda bal wax ma ka xasuusataa sidii loo dabaaldegi jiray sidii la ahaa haa wallaahi bilaa waa xasuustaa kow waxaa loo dabaaldegi jiray horta dadkoo dhan waxaa ka muuqday farxad raynrayn waxaad arkaysaa qof walba wuxuu wataa kaan wax wadan xitaa caleemo qoyan buu wataa dariiqyada wax wada cunka yaa labiska qof walba labis qorxoonu watay marka hadda yurub baanu joognaa inaan ciidaynay in kale ma dareemayno laakiin soomaaliya oo kale heesihii dhinac bay ka socdaan dhinac ciyaaraha ka socdo xaggaa haddaad u baxda dhowr ciyaarood qaar dhaantay ciyaarayaan qaar waxay ciyaarayaan walasaqo qaar bulla ciyaarayaan qaarba nooc markaasaa marna xagganaad u maaweelo tegi marna xaggaad u maaweelo tegi marna xaggaad u maaweelo tegi waa la wada faraxsan yahay qaar baa fuusbaal xitaa ciyaaraya waa banooni qaar baa ciyaaraya xitaa waxaad arkaysaa marmar dad baa dabaal aadaya dabaasha xeebaha laakiin hadda dee ma dareemi karo waxna kama sheegi karo kolley dadka soomaaliya jooga arrintaas iiga xoog leh waagiyadii aa u soo joogtaa ka sheekaysa markaa masraxa soo istaagtaan hobollada waa beri heesay ku dhufan jireen oo la yaab leh oo dadka aad soo jiido ka hadlaya maalmaha xorriyadda oo kale waxaa ka mid ahaa maalan ka soo qaad sangub hatraawi cabdiqays abwaaniin badan ayaa heese alifi jiray hobollada waa berina dee way ku looqayn jireen ayagoo macnihii isku wada jira ay macnihii gabdhi iyo wiilal inta la safto fankana wuxuu ahaa fan wada jir ah oo iswata oo fan goonigoone muuna ahayn marka hadda isbeddelka fankan oo kale haddaan waxyar dhinac ka leexdo waxaa keenaya dowlad la'aan ayaa keenaysa hadda marka gurub wada socda oo fanaaniin ah oo heesihii calankaana wada samayno oo aan si wada jir u wada qaadnay dhahaya ma arkaysid annagu waxaan nahay walaalaha xayaa wadani aniga iyo bashiir cali xuseen iyo mataqaanaa maandeeq canuur garaash gabar fawsiye la yidhaahdo annagoo dhowr ah waa isu tagnay sayid cali caseyr ayaa mataqaanaa inta badan na abaabula xuseen ayaa ka mid ah xuseen wadaad cali yaxye adeerka qarniga muxuu ahaa ninka la yidhaahdo maxamed yaxye kunciil wiil la yidhaahdo oo asna soomaaliya ku nool sugaal cabdullaahi xitaa nagala mid ah waa la badan yahay liibaan honest annagoo badan zahro ayaa ka mid ah asxaab badan idinkoo ah annagoo ah waxaan hadda targaraynaynaa in aan gruub dhisno sida mataqaanaa markii kooda luulele oo kale aan si wada jir ah fankii aan u qabanqaabinno insha allah allah nugu guuleeyo marka taasay kaga duwan tahay hawladu waa beri marka goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadiina daysay kowda luulyo markaan maqlo adigu jiraaco wixii baa ii muuqanaya quruxdii fankii haybaddii safkii la geli jiray tiyaatarkii wixii oo dhan baa ii muuqanaya waayo waxaan xusayaa sicil xarow dadkana igu soo dhacay waxaa alifay sicil xarow ya sicil xarowan wuxuu ahaa goormaan ladnaanay ninka alifuu ahaa nin xorriyaddii u soo taagan weeye waa hambalyaynaya waana salaamaya sicil xarow haddaad imaqlayso aad baan kuu salaamayaa abwaanka waddaniga ah oo maanta soomaali
aan mataqaanaa magaciisana aan soo qaadin khadiijo cabdulaahi dalays ayaan soo qaaday ayadana sababtoo waxaan u qaadayna wax kalma taajiro anigu heesa aan leeyahay waa qaadi karaa laakiin waa xorriyaddii dadkii waaweynaa inaan xuso oo taariikhdoodii laga sheekeeyo ma fahamte gumaysiga maanta waan garanayay inuu gablamaayo gabalkii dhacayo garabkiinaan soconaye geeshkayagu guulaysta garabkiinaan soconaye geeshkayagu guulaysta 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 guul lagu reeyo guulaysta 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 guul lagu reeyo guulaysta ninkii gardaraada ilaah ma gargaare gantaalaha rida oo cadaawaha guba oo garabkiinaan soconaye geeshkayagu guulaysta garabkiinaan soconaye geeshkayagu guulaysta 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 guul lagu reeyo guulaysta 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 guul lagu reeyo guulaysta aad u maasta cabdibaadil waxaan filayaa Saciid Harawo inuu weli joogo baxsan maamada khadiijo cabdulaahi baxsan waxaan leenahay allah ku caafiyo faadma cabdulaahi maandeeq allaha caafiyo waa dadkii u soo halgamay waddanka xarid ismaaciil duniya khadiijo cabdulaahi dalays allah u naxariiso baxsan ayaan u soo noqonaya yaa ilooban magaceeda heesta hadda iyadaa lahayd baxsan waxaan ku leenahay ilaahay caafimaad ha ku siiyo xorriyaddiina anigu kama sheekeenka weliba fanaaniin waaweyn sida axmanaajiyo kala jooga oo taariikhdii haya laakiin waxay haystaa bilad geesiya maantoo kale marka waa in laga sheekeeyo maadaama ay tahay maalintii xorriyadda waxaan raacidanayaa marka aan kala reebayn Saciid Harawo isagana ninka dilay walaalkeen annana waa noo dan leeyahay daqar baa gaari doone afriikoydaya ninka dilay walaalkee annana waa noo dan leeyahay daqar baa gaari doone afriikoydaya diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonahayayu inuu duudsiyaa rabo annagu diidnaye ogow diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonahayayu inuu duudsiyaa rabo annagu diidnaye ogow annagu diidnaye ogow waata cabdibaadil waxaa ka sheekaysay fanaaniintii waaweynaa oo kaa weynaa oo xorriyadda iyo joogay oo biladaha geesiga qaarkood ka qaatay sida baxsan oo kale kolley waa kuwii tv-ga inay dad kaa daawadaan laga yaabaa si fiicana u xustay adigu qudhaada waa joogtay xilliyadii dabaaldegan filaya xorriyadda inaadan gaarina laga yaaba laakiin dabaaldegyadii wax badanaad joogtay dadkii waxaan nahay la kowsaday xorriyadda farxadda dhashay farxadda iyo xorriyadda iyo ku dhashay marka annaga qayb fiican ayaan Soomaaliya ka bilownay laakiin waan ku xumaay dad waxaa jira xoolaadaha ku dhashay marka isku duubnaada yaa waddankana dhalinyarada waxaa boqolkiiba 75 Soomaaliya waxaa la waa dhalinyaro dadka Soomaaliyeed wax ugu tala gashay maanta oo kale maalin maadaama xorriyadda ay tahay heesii dhalinyarada oo kale dhalinyarada maadaama aad u badan yihiin waxaan soo koobay allah u naxariistay Saada Cali heesihii aan ku soo wada caan baxnay oo weliba iyadoo caan bay ahayd laakiin aan isla soo caan baxnay heesihii 80-meedii waddanka haystay ayaan u soo qaadanayaa heestaasna waxaan jeclaan lahaa taajirow
waxaan ogahay markaas laakiin ma aqaan da'daadu waxay ahayd 80 iyo adigu waxay soo baxday 80 iyo 8 waxaa laga markaas 15 jir badan Yeah. Uguma halaba isu oomanayo waqti kala igdee uguma halaba isu oomanayo waqti kala igdee ehel caashaqo waxaanahay in badan ayaha sidee ehel caashaqo waxaanahay in badan ayaha sidee ogobay kalgacal axdi dhowristii ammaanteeda lihin soo jeedadeeni kumaynaan naflixin ubad khayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahowna sii aamiin nalahayo aamiin ogobay kalgacal axdi dhowristii ammaanteeda lihin soo jeedadeeni kumaynaan naflixin ubad khayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahowna sii aamiin nalahayo aamiin adan iyo xaawa ololaha kalgacal ilayn soo unkee adan iyo xaawa ololaha kalgacal ilayn soo unkee admiga kalena amba qaadayayo abtirsii ma noqoy admiga kalena amba qaadayayo abtirsii ma noqoy ogobay kalgacal axdi dhowristii ammaanteeda lihin soo jeedadeeni kumaynaan naflixin ubad khayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahowna sii aamiin nalahayo aamiin ilaahowna sii aamiin nalahayo aamiin ilaahowna sii waata cabdibaadil allah u naxariisto saado weli ayadoo halgamayso xildhibaan ay dhimatay allah u naxariisto kuwii dilana kolley waxay ahaayeen dad arxan laawayaala kolley waana la marsiiyey ciqaabtooda waxaan kaloo kaa rabaa heestii saado waa qaaday ay kula qaadi jirtay oo lagugu xasuusto ilaa hadda aan heesaha dhicin ay ka mid tahay qof walba soomaali inkastoo iyadoo aan barnaamijka jecelnaha inaan soo koobno aan soo gabagabayno heestii calanka iyo laba heesoo kale wadani aan kusoo xiri doono cawaale cawaale calankayagow cawaale calankayagow cawaale 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 calankayagow cawaale calankayagow cawaale 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 halkan baad ku curatay cawaale gasiyaa ku ciidashay cawaale halkan baad ku curatay cawaale gasiyaa ku ciidashay cawaale uqubay ciida dhige cawaale awadaye uqubay ciida dhige cawaale awadaye hamudan il calankayagu cawaale hamudan il calankayagu cawaale midabkaagu waa sida cirkee xidigtuuna waa sida xadkee waa calaamad qarane
calanyahow ha mudan ciil calanyahow ha mudan ciil midabkaagu waa sida cirkee xidigtoona waa sida caadkee waa calaamad qarane calanyahow ha mudan ciil calanyahow ha mudan ciil waa lagu ciiday oo lagu ciyaaray oo lagu caweeyey oo lagu ciseeyey calanyahow ha mudan ciil cibrigaa jiro waa lagu ciiday oo lagu ciyaaray oo lagu caweeyey oo lagu ciseeyey calanyahow ha mudan ciil cibrigaa ha jiro cadowgaa ha jabo cadowgaa ha jabo calankayagow cawaale 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 calankayagow cawaale calankayagow cawaale 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 caruuriyo wax garadiyo cawaale ciroliyo wayeelba cawaale caruuriyo wax garadiyo cawaale ciroliyo wayeelba cawaale kuu caleema lulayo kuguna calool fiyoobe kuu caleema lulayo kuguna calool fiyoobe hamudan ciil calankayago cawaale hamudan ciil calankayago cawaale adiga cilbur bari raas casayr caliyaale balad weyn xamar caddee cirif weliba dalkeenna calanyahow ka lulataa calanyahow ka lulataa adiga cilbur bari raas casayr caliyaale balad weyn xamar caddee cirif weliba dalkeenna calanyahow ka lulataa calanyahow ka lulataa waa lagu ciiday oo lagu ciyaaray oo lagu caweeyey oo lagu ciseeyey calanyahow ha mudan ciil cibrigaa ha jiro waa lagu ciiday oo lagu ciyaaray oo lagu caweeyey oo lagu ciseeyey calanyahow ha mudan ciil cibrigaa ha jiro cadowgaa ha jabo cadowgaa ha jabo waa tahay waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeennii gaarka ahaa ee idinkaga soo diyaarinaynay waddanka Holland islamarkaasna aan uga hadlaynay maalinta xorriyadda waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay saaxiibkay Cabdi Baadil Ibraahim oo aan filayo inay heeso badan oo halkan ka qaaday qaar kabanay qaar caadi oo laakiin badanaaba ahaayeen heesihii wadaniga asagoo ka sheekeeyay wuxuu ka yaqaanay maalinta xorriyadda inta barnaamijka gabagabayna Cabdi Baadil maxaa ku soo gabagabeeyay anagu kolley Holland ayaan maanta caawa aan ku dabaaldegaynaa waxaana nacsuumay jaaliyadaha reer Holland oo hormuud u yahay Sayid Cali Casayr oo ninka ugu ololaha badan ayaa nacsuumay marka iyo dhammaan reer Holland oo dhan iyo jaaliyadaha reer Holland tajiro marka anagu waxaan leenahay ciid wanaagsan hambalyo sanadka cusub ilaahu Soomaalidu qulubteeda soo jeedi ilaahu nabad nooga dhig waddankeena hala duceysto aamiin marka waxaan leenahay kolley laga maarmaan qolaba calankee duwacaymo qolaba calankee
duwacayno inaga kenuwa cirko kalaye aan caadna lahayn ee caashaqaye digyahay cadiwaad naaciida mise xidigyahay cadiwaad naaciida mise carada keliga aaduu curade cadceedda sidii siicaan noqoyeen qoloba calankee duwacayne inaga kenuwa cirko kalaye aan caadna lahayn ee caashaqaye waa tahay aada umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cabdibaadil. intaas ayaan daawadayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa oo idinkaga soo diyaarinayna waddanka Holland. martidan uu ku ahaa cabdi baadil ibraahim. intaa barnaamij midkaan la mida daawadayaal aan ku kulmayno sidaasi nabadgelyo dhinaca farsamada iyo kaamirada waxaa ka hagaaya barnaamijka maxamed yare. inta aanu barnaamijkaan la mida kulmayno sidaasi nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ciid wanaagsan.